عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaad axbaabi aan jeclahay waa mar kale walaashiin bidhaan qurux youtube channelka anaga daawanaysaana waa Noolina Lady Boss. hore hadaa noola joogtay oo family-gan quruxda badan ee Noolina aad kamid ahayd laag dheh haddii aad nagu cusub tahay kusoo bir family-gan quruxda badan gacmo furan ayaan kugu soo dhaweynaa. subscribe dheh laag dheh gambaraalka furas ay kusoo garan fiidiyoyaasha aan meeshaan soo gelin. axbaabi wax badan aan kala maqnayn hadda waan isku soo noqonay insha Allah. axbaabi maanta waxaan jeclaystay قصة إلى يعبسي أنا عجيب إن أنا ولا قصة أنا يا واحد كده على لبا وطن واحد كده على إنجليزكا إياه تشيناها قصة واحد على لبا يكون يسيدتي وحين صار شعب هذا لبا يكون يشتغل أحبابي أنقار مرنا قصة وطن كي كسب بناها صبرك هل كان وجود جدًا وقبل لو ما جعوا ليزا هوكي waxay dhalatay 1984 ayay dhalatay gabadhan waxayna u dhalatay wadanka Ingiriiska gaar ahaan waxay ku dhalatay magaalo la yiraahdo Eva ayay ku dhalatay gabadhan ayaa dugsigeedii hoose ama qaybeeda waxbarashada bilowgeeda ayaa waxay ka soo bilowday hoose dhexe iyo saraba aan dhahno iskuul la yiraahdo King Henry VIII iskuul la yiraahdo ayay ku soo baratay baabi iskuulkaas qof waliba ma gasho ama qof waliba waxba kuma soo barato iskuulkaas dadka lacagta haysto ayaa wax ku barto lacag oo kaliyana wax loogama barto iskuulkaas iskuul waliba markii wax la baranayo ama jaamacad ha ahaato dad isku mid ma aha top 10 ama levelka ugu sareeya dadka ugu dhibcaha sareeyo ayay markasta iskuulkaas qaataan oo wax ka barto iskuulkaas Liza iskuulkaas ayay waxa ay ku soo baratay dugsigeeda hoose dhexe iyo sare ayay ku soo baratay Liza 2006 ayay waxay dhameysay jaamacadda heerkeeda koowaad ee bachelorka 2006 ayay dhameysay sida asawirka ugu jeedaan Liza waxa ay jecleed in yacni ay dhameystirato jaamacadda heerkeeda labaad ee masterka loo yaqaano balse daruufo ayaa u saamixi waayay in ay heerkeeda labaad ee jaamacadda ay dhameyso ay dhigato ama bilaawdaba heer daruufahaas website-ka laguma soo qorin ay u bilaabaysay masterka Liza hooyadeed iyo aabaheed kaligeed ayay dhaleen waxa aan la yaabo ayaa waxay tahay axbaabi qiso waliba ay dil ku saabsan ama qof markii la dilaayo waa dadka kaligood waalidkood ay dhaleen ama kaliga ah madi maalaha dadka madiga ah ay ku dhacdaa qosooyinka dilalka inta badan waa amar ilaahay anyway aan ka sii gudubno sheekadan Liza markii ay dhameysay jaamacadda waxa ay aaday wadankaasi Jabaanka markii ay tagtay iskuul la yiraahdo International American International Novel American International School yiraahdo ayay waxay ka bilowday macallinimo iskuulkaas marka dadka ka shaqeeya wadan kasta horta wuxuu leeyahay adiga marka yacni jaanaha hadda kale Ingiriiska international kaas ku yaalo Ingiriiska haddii aad tagto Paris oo kale adiga wadan waliba waxa ku yaalo iskool wadamada kale magacooda oo isla wadankii dadkii joogay oo kaleenta ee waxbarashadooda ee la mid tahay ay joogo anyway gabadhan luqadda Ingiriiska ayay ka dhigaysay oo qayb macallinimo ayay ku joogtay iskoolkaas Novel International American yiraahdo ee ku yaalo wadankaas Jabaanka macallimiinta iskoolkaasi dhigta ama ka shaqeysa dawladdu waxay siisaa apartment ay degaan macallimiinta gabadha ayaa waxa ay deganeed apartmentigii ay siiyeen dawladda way iskoolka ay dhigaysay ayaa siiyay anyway gabadhan waxay sameysay marka oo 2007 la maray January ayaa waxay aragtay wiil iskoolkeeda kamid ahay ardadii ay wax bari jirtay ee waxay isku arkeen tareenka dhexdiisa meeshana waa lagu sheekaystay waana la isku salaamay wuxuu yiri waxaan u baahanahay in aan gurigaada biyo ka soo cabo waan oomanahay ana cajaanahay wiilka uma aysan diidi karin waayo macallin ayay u ahayd balse waxa ay u sheegtay sir magaalnimo ah guriga inay laba gabdhood oo macallimiin kala la degan yihiin oo iyada kaligeed aysan gurigaas deganin anyway gurigii ayaa la geeyay biyaha ayuuna ka soo cabay kadibna waa la balamay waxa uu yiri cafeteria malaha aan isku imaan wiilku magaciisa aan idin baro waxa la yiraahdaa Tot Sawyer
jabanka ayuu u dhashay 1979 ayuuna dhashay. gabadhan wuxuu ka weyn yahay da ahaan 5 sano ayuu ka weyn yahay. 2005 wuu dhameeyay jaamacadda, ayadana 2006 ayay dhamaysay jaamacadda. hal sano ayuu ayada ka horreeyay. balse wiilkan hooyadiis iyo aabiis ayaa taajiriin ah. hooyadiis waa dhaqtarad dandiistaha ama ilkaha ah, halka aabiisna oo dhaqtar jaraax ka yahay ama dhaqtarka surgery-ga sameeyo uu ka ahaa. lacag ayuu haystay, wax shaqaana ma uusan qaban, waayo hooyadiis iyo aabiis ayaaba lacag haystaba, shaqo ma uusan baahnin inuu qabto. wiilkan wuxuu deganaa guri hooyadiis iyo aabiis qorsiyeen. Tatsaya waxa uu la balamay ama uu cafeteriyada ku balameen Lisa Marso 2017 markii la marayay. meesha ayay iskugu yimaadeen waana ku sheekaysteen. wuxuu yiri waxaan rabaa inaan xagga luqadda iga saacido oo aad i barto. anyway way ka ogolaatay maadaama iskoolka ama dhigaystay booliskiis uu yaalo macalinka waqtiyaasha uu wax dhigaayo oo iskoolkan uu ka dhigaayo waqtiyaashiis ka banaan inuu wuxuu rabo samaysan karo uu free ah. waxayna ku balameen 3 maalin inuu isbuuc 3 maalin wax ka barayso ay ku heshiiyeen. marka heshiiska la gaaray isla markiiba wuxuu dhahay maadaama aan heshiinay maxaa waqti iskaga luminaynaa, maan isla haddaba ka bilaabno cashirkeen oo aan cashirkeena maantaba ka bilaabno. waxa ayna weli fadhiyaan meesha cafeteriyada. anyway waxa ay tiri anigu gurigeyga waxa ila degan gabdho sida aan hore kuugu sheegay. meel cafeteriya ayaan ku baranaynaa 3 maalin. cafeteriyada aan waxbarashada ku bilaabi lahayn aan hadda isku sii sheegno. wuxuu yiri maadaama guriga lagula degan yahay gurigaada biis yahay, haddaan keega aadno kabar keega qofna ilama degano wuuna dhow yahay. asaga ayaa maxkamadda ka dhex sheegay oo yiri aniga ayaa ku qanciyay una sheegay kalsoonina geliyay inay gurigeyga tagto. sidii ayayna guriga ku tageen. 24 Maars ayay ahayd markaas. kadibna gabadha 2 bari ayaa la waayay. jaamacad iskoolkii ay wax ka dhigaysay markii ay 2 maalin waayeen gabadha telefoonnadeedana iska dhacay oo la qabanaynin. waxay soo wargeliyeen gabdhiina waxay dhaheen anaga maana. anyway markuu dhib dhaco familiga qofka ayaa la wargeliyaa oo loo sheegaa lagu dhahaa qofkaagii waa la la'yahay. hooyadeed iyo aabaheedna sidaas ayaa loogu sheegay. booliska waxa ay bilaabeen in ay baaritaan sameeyaan. baaritaan dheer kadib waxay weydiiyeen gabdhaha guriga gabadha la degan qofka ugu dambeysay ee ay la kulantay. waxayna u sheegeen inuu ahay Tatsaya oo guriga la yimid maalinta ugu dambeysana ee isaga balan la lahayd. ciidanka ama askarta ayaa waxay aadeen guriga Tatsaya, balse gurigiisa qofna ma aysan joogin. markay gargaraaceen lagama furin. booliska isla markaas guriga ma aysan geli karin, waayo warqad fasax ama caddeyn ah inay gurigaas galaan ama jabiyaan uma aysan haysan. dib ayay u laabteen booliska oo waxa ay aadeen gurigii. waxay u laabteen meesha maqfarkoodii. waxayna ka soo qaateen warqad caddeynaysa inay gurigan geli karaan ama ay joogi karaan. guriga markii ay galeen ma uusan joogin Tatsaya. wax lacagana ma oolin. baasaboorkiisa iyo xoogaa dharana hore ayuu uga qaatay. balse nasiib darro balkoonka guriga ayaa waxaa laga helay meydka Lisa oo si xun loo dilay, jug fara badanna ay ku taalo, waxyaabaha anshax darrana loo geystay. idinku waa fahmi kartaan waxyaabaha anshax darrada ee gabadhaasi loo geystay. meydka Lisa markii la helay waalidkeeda ayaa la wargeliyay oo akhbaartaas loo sheegay meydka gabadhooda in la helay. balse waalidkii gabadha dhalay way soo duuleen oo wadanka Jabaanka ayay yimaadeen. markii ay yimaadeen gabadhoodii oo meyd ah baaritaan dheer la sameeyay. sawirka ujeedaan waa asaga oo soo koraya ansaseerka guriga. asagoo soo koraya ayaa sawirkan kaamirooyinka sawireen, sababtoo ah ansaseerada waxaa ku dhagan kaamiro si amniga dadka loo sugo. anyway waa la raadiyey waana la waayay wiilkaas. 2009 6 bilood kadib 2009 hal sano iyo 6 bilood kadib ayaa waxaa la soo ogaaday majaraa'idka laga arko sida ujeedaan sawirkiisa. waan ka raadgelinayaa dhabaqa gurigeena ayaa wuxuu u dhow yahay laamiga. sawirkiisa ayaa laga arkay. isaga magaca ayuu bedeshay, waana Philippine wadanka ayuu u duulay, Philippine la yiraahdo. kadibna markii sawirkiisa la arkay
boolisku waxay bilaabeen baaritaan iyo dadka jawaasaadka meeshaas ka safreen in ay baaritaano ku sameeyaan. baaritaankii kadib waxay ogaadeen in uu isla markaa uu gabadha dilay uu ka duulay wadanka airportkaasi una aaday Philippines, magacan bedeshay isla hotelkii adiga. anyway baaritaan dheer kadib waa la soo helay, waayo wadamadan waxay gaareen casri qofku ma dhuuman karo si kastoo isku qariyo waa soo qabanaya. wuxuu sameeyey tajmiil sida ujeedaanba ama taqyiiraad wejigiisa uu ku sameeyey, yacni isqurxin. tajmiil عربي تجميل أيام كلها بس Soomaaliga isqurxin aan dhawo isqurxiin tajmiil ayuu isku sameeyay wadi jeedaan wuxuu ka shaqeynaa meelaha dhismaha ayuu hal sano ka shaqeynaa wadankaas Philippines uu joogo meelaha caanka markuu aadi jiray saasoo ku jeedaan yani gabar ayuu iska dhigi jiray burko oo xiran jiray. anyway 2009 ayaa la soo qabtay maxkamadna lagu maxkamadeeyay. gabadha hooyadeed iyo aabaheed way diideen in ay arkaan isagoo wejigiisa, waayo halkii gabar ay adduunka ka dhaleen asaga ayaa dhaafiyay, waxay ku arkaan mabalanba. balse wuxuu usoo qoray warqad ama rasaa'il ayuu usoo qoray, yani waagi hore camal dadka warqadaha isku qoraan, warqadaas ayuu usoo qoray oo raaligelin ah. balse raaligelin waxay ku taraysaa gabadhoodii halkii gabar ay adduunka ka qabeenba asaga ayaa dhaafiyay Soomaa. raaligelin ayuu soo qoray anyway, balse ictisaarkii way ka diideen, waayo waxba uma uusan taraynin raaligelinta oo soo qoray. 2010 markii la maraayay ayuu wuxuu qoray buug. haddii aad fiiriseen buugaagta dadka la dilay dadka wax dilay ayaaba qoraba. 2010 ayuu wuxuu qoray buug sida uu gabadha u dilay iyo dhibaatooyinka uu ka maray dilkan uu geystay. balse buuggiisa kuma uusan soo qorin yani dilka sida uu geystay iyo waxyaabihii uu gabadhaasi ku sameeyay, balse dhibaatooyinkii uu kala kulmay markii uu dilay gabadhaas, dhibaatooyinka uu maray ayuu buuggaani ku soo qoray. qisadan waa qiso aad